السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا عبد الله لنا جنرال كداون اسمه وجلير ميديا. هذا اسكو نقد وناكسن وقولي بحيس بدن. waxaan rabaa muuqaalkan waxa ugu talagalay asxaabteyda ku xiran channelka Galer Media in aan faahfaahin badan aan ka siiyo waxyaabo maaragtay su'aalaha soo weydiinayaan in aan maaragtay aan la wadaago. horta hore haddii aan ku bilaabo lambar 1 haddii aan ku bilaabo cilada horta hore haysata koodka ka haysata waa cilad guud ahaan waaye caqabada taaganna waxay ka taagan tahay shabakada OneXBet. mafaatay cilada ku haysata kaliya ma ahan ee waxa kula qaba dhammaan saaxiibada isticmaala OneXBet ee uu xiran yahay lambarka SMS ahaan uu xiran yahay. saaxiibayaal waxaan aad iyo aad uga xumahay in maaragtay muuqaal 5 bilood ka hor aan soo dhigay asxaabta inta badan ay su'aal iga soo weydiiyeen oo waqtigiisii la dhaafay ama waqtigii sheyga intuu maaragtay oo ka gaarsiisma lahay ama ka taxadir u lahay la soo dhaafay. ay horta hore muhiimadda aan muuqaalkan 5 bilood ka hor u soo geliyay waxay ahayd fariin gmailkayga ku soo dhacday taasoo sheegaysay in goordhow ama mar dhow ay ka maarmi doonaan text message-ka OneXBet ay ku u wareegi doonaan application-kani la yiraahdo authentication code si markaasi ay uga baaqsadaan dhaqaalaha badan ee kaga baxaya helista koodka. marka waxay laba midba dib ku qabeen oo ayaga maaragtay xagga dhaqaalana uga baxayay OneXBet oo text message ay dirayaan qofkanina dadkan oo markaasi ama shakhsiga markaasi koodka dalbanayana wuxuu markaasi uu ku dhibanay helistiisa ama inuu ku celceliyabo oo limit-kii u dhaafo. wax walbana limit ay leeyihiin. tusaale haddii aan ku soo qaato shabakada Facebook profile-kaaga markaad waxaad tagtaa lambarka telefoonka meesha kugu xiran waxaa fiirisaa inta jeer aad heli karto ama aad codsan karto koodka bedelista lambar sireedka. waxaa ku qoran limit-ka kama dambaysta inuu yahay 5 jeer. Google-ka kaleeto limit-ka kama dambaysta aad heli karto waa 3 jeer. OneXBet-na waa sidoo kale asna waa 3 jeer limit-ka kama dambaysta aad heli karto kood. haddana ayaga OneXBet waxay kaga duwan yihiin hal mar markii aad kood codsato tusaale markii lacag la bixista aad codsato kood waxa hoos ugu soo qoraya qadar sikimo ah oo lagu leeyahay markaasi sikimaka markay dhamaadaan kadib dib u codso mid kaleeto. haddana markii aad bedelayso lambar sireedka kaleeto codsashada koodka dalbashada markii aad kood dalbato inuu ku soo dhaco waxa lagu soo qorayaa 3 jeer ka badan ma dalba kartid oo haddii aad dalbato waxa laga jarayaa ama laga xadidayaa muddo 24 saac kadib ayaad ku soo laaban kartaa. anaga marka ma sugno oo degdeg baan ugu furan 3 jeer in ka badan aan ku celinaa hadhowdii markaan anagoo 3 jeer ama 4 jeer ku celinay oo noo soo diray ayaa haddana dib mar kaleeto waxa laga yaabaa in haddana u codsano 2 jeer kaleeto. marka ayadan uguma jirto shabakada OneXBet. marka muuqaalkani wuxuu ahaa 5 bilood ka hor. su'aalaha marka tirada badan ee imaanaya ee weydiinta badan ee markaas iga soo weydiinaya hal ma leeyahay hal ma loo helay halka aad raadinayso markii cilad guud markay tahay waxa xalin karo company markaas ay haysato caqabada ay ka timid ayaa xalin karo. waxaan leeyahay marka idinkoo degdegin oo fududaanin ku celcelinin dalbashada ana ka badin qaybta taageeraha taga codsiga macaamiisha qaybta macaamiisha maaragtay customer support-ka taga lambarkiina geliya si markaasi ay soo wacan caqabada ayaga xalin karo. sheyga halka loo heli karana waa shay markaasi hal qof ama 2 qof mid markaasi haysta laakiin mid cilad guud oo markaasi dad badan ay haysato ama asxaab badan ay haysato ma ahan mid markaasi oo miskiinkan oo xalin karo. fadlan haddii aad channelka cusubtahay channelka subscribe saar laagta ka ilaawin inta muuqaalkan oo kale la mid ah ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.